aan rabo inaan bulshada hor keeno gaarigan u dambeeya markuu bulshada gudbinaa isagaa shaashadii qabsaday waan ka xumahay ugu dambeeya waxay noqotay shiina oo haysta 174.6 iyo daayar oo asaga ku dhow oo haysta 480 waana markii toddobaad daayar sharaf iyo kama anagoo ku hayna soo dhawo walaalkii waayahay shiini ana su'aalaha kama baqay su'aashiisii koowaad baan uga jawaabayaa fu'aad buluumeg aabuu ka hadlay horta waxaa lidhi shiino wiil waa abtigii taariikhdana nin hawiye ahoo laga roona ah oo magaca hawiye sheegta fu'aad buluumeg aabaa laga arkay isagana wiil waa abtigii naag raatiyaha dhashay naagta hartidana weelkeeda ayadaa leh anigu haatan intaan dulmiyo oon likaacala doonto gabadhaas Soomaaliyeed dhihi maya waa soo sinaysata laakiin waa lidinku xantaa saa darteed wiilka waxaan leeyahay annagu nagama imaanin qolada noocaas hore nagala barane haddaan hadda fadarownay abtiyaalow idinka abtiyaalow wiilka horta aan DNA ka qaadno markaan DNA ka soo qaadno yaa haddii uusan wiilkaas reerka ahayn iyo hadduu reerka waa caddaanaysaa markaan leeyahay waxaa laydinka helaa qaniisiinta iyo kuwa gaalooba waxaan kuu soo qaadanayaa ayaan xirsi oo taqaano oo ayadaha quraan korkeeda ku qortay waxaan kuu soo qaadanayaa nin liyaada nuur jaamac oo Australia ku nool oo yiri anigu nin majarteen ahaan nahay oo hartiyo daarooda 16 sano masaajidkan imaam ka ahaa jugtana waa lagu hayo jeeb gadaal baan nahay oo qaniis baan waxaan kuu soo qaadanayaa gabdhihii ugu horreeyay TV soo fariistay qirtay yiri aniga ma taqaanaa yiri anigu $6 baa lagu iibin jiray dugta culus baan ayuu afka Ingiriis ku hadlaa gaalada la hadlaay waxaan kuu soo qaadanayaa dhaqamada noocaas ah oo la wada yaqaano waxaan kuu soo qaadanayaa naagtii ku maahmaahday gobo waa inta dheer qoyan oo micnaheedu tahay in haddaad gabar reerkaas aad guursato aadan ugu imaanayn waxaan kuu soo qaadanayaa kuwa yiri walaal hebel anaga madharees naga dhasho maxaa dhacay madharees ma walaal buu salahayn oo ah micnaheedu in ninka walaalkii hadduu asaga waxba dhalayn walaalkii u fuuray naagta waxa asagoo dhaqan xumo ah aday kugu arooraan ani magacii kuma arooraan waxaan kuu soo qaadanayaa in gabdhaha la qabay marwooyinkiina ah markii la guursado nin qabo ka ilma dhalo hadday gaal cadaka iska raacaan ayagoon diin iyo dhaqan iyo ahdi midna aan tixgelin waxa soo dhan oo xanuuna oo booga oo ceeba ayaa leedahay shiinow marka wiilka buluumeg abti baa u tahay wiilna waa abtigii baa la yiraahdaa islaanta inuu bal islaanta xaggeeda ka yimid cunugaas oo idinka ay yahay iyo anaga inuu yahay waxaan rabnaa taas dood baan ka qabaa inaan DNA ka qaadno soo dhaqankayga sababtoo ah waa shakino hore uma aqoon anagu wax laga roona ah oo anaga ahmaana aqoon laakiin hadda aftirsiyan siisay waana imaan kartaa munaafiqada noocaas ah oo waa dhaqan aan leedihiin haddii aad doodaada su'aasheedu uga jawaabtay daarood ma leeyihiin magaalo 1 milyan qof noosha oo atri Puntland ba 4 milyan ku noosha dadkaas taasi waxa weeye anoo ka qiiqsanaya waxaan u daynayaa dadka dhageystayaasha in labada dhinac inay arintaasi adigu taariikhdooda ku qoraan haddii ay run tahay oo Puntland 4 milyan ku nool yihiin waa all right hadda aad ku sibaxtana waa wax laga yaaba waxa soo qaadatay ogaadeen iyo dhul Ethiopia gumaysata anigu waxaan ka hadlayaa ilaa caawo dal Soomaaliyeed oo madax bannaan waxaan ku weydiinayaa caasimad maxaad ku weys waxaan ku weydiinayaa madaxweyne ugu horeeyay Soomaaliya muxuu hawiye u noqday ra'iisul wasaare ugu horeeyay Soomaaliya muxuu hawiye u noqday waxaan ku weydiiyay maxay madaxweynayaasha hawiye markay kursiga qabtaan si dimuqraadi u wareejiyaan kuwa daaradna loo kicin waayay jawaabteedu ma hayst waxa ku soo caraysaa Umar Cabdirashiid iyo Meer Suke waxaad leedahay madaxweynayaasha soo magacaabay ayay la tartameen lafteeda taas waa ay caynaysa adna aad ka warqabin macnaha inuu qofku madaxweyne soo magacaabay oo la tartamo waa ay laakiin inuu cadaalad falo waa gobonimo waa tan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ku sheegay inuu asaga musharax ahayn oo saxiil u tartamayn oo madaxweynimo rabin laakiin uu cadaalad falay doorashadu waxa laga wadi laayahay maxamed Abdullaah Farmaajo oo ceeboobay
oo dadka Soomaaliyeed ubadka Soomaaliyeed baabi'iyey oo musharaxiintii hoteelada ku weeraray oo dhaqankii lagu qiinay ragga madaxda daaroodka ah la soo baxay oo ahayd macangagnimo xukun jacayl waali la soo baxay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooblana oo halgamaya waa kan oo afka qabtay waa kan farmaajo qolka lagu soo xiray waa kana ugu dambeyn xafiiskiisii weeraray ee yiri ninkii xilkiyan ka qaaday markaad goobay ay hadlaysa dadnimo kelmadda iyo laaqada faanka ah astaan bad u leedahay laakiin wax iska celin astaan u malid farmaajo waxaan ognahay inuu shirweyne qaran ku dhawaaqay inuu ra'iisul wasaariyan ka qaaday xilka ama awoodiisa yaa dhimay caaw xagee ku dambeysay waxaan xasuustaa inuu yiri farmaajo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa weerar xagee ku dambeysay dhaqan xumada kaligi taliska inda adayga waa tan qolka kugu soo xirayso farmaajihii shalay beenta taxaayay uu maanta qol ku xiran yahay haddaad xishoonayso taasad ku xishoon lahayd tan ku saabsan damiirka dadnimada aniga adigu kala noolna tusaale waxaan kaga soo qaadayaa iminka anigu haddaad gasho TikTok waxaad arkaysaa 5 daarooda 3 daarooda iyo midgahoodii oo aniga wada caayaya oo group saaran laakiin arki maysid 5 hawiye ah ama 2 hawiye ah oo sakraan geestiidii shiina culi caayaya arki maysid marka waxaan garan waayay haddaad karti leedahay maxaad markaad xanaaqdo diimaha oo caaysan hooyooyinka oo caaysan waalidiinta oo caaysan gabdhaha oo caaysan u leedihiin hablaayaha basbaalkeeda baafa baaldiya markii gabartiina la soo halqaday alla ooyinaysan waba ooyintaan maxay tahay kartiyarada aad ku aamin laadihiin inaad aamintaan inaad tihiin dad jira oo haddii daahir calasow wax sheego la yiraahdo hebel hebel loo daayo maxaa isku hor yaacaysan oo qofka soo fuusho daahir calasow dhila calasow canda calasow wixiga calasow dad calasow maxay tahay need meerkan ida heesta riyadan qarowga ah ee aad ku jirtaan su'aalahaasi oo dhan ayaan ku soo qadimayaa si aad u garwaaqsato halka aan mustawaha aan kala taagana tan kale waxa weeye aniga markaa xilka qabto waan wareejiyaa dimuqraadnimada adi maxaad u wareejin lahayd dimuqraadnimada maxaad u dagaalamaysaa maxaad u qaxaysaa maxaad u noqonaysaa